ugu horeyn waxa la wareystay wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga marka wasiirka amnigu wuxuu ka warbixiyay in maaragtay dhawaan 7 caruur ah oo ay shabaab qaateen oo ah kuwa ay u adeegsadaan inta badan maaragtay qaraxyada iyo maaragtay dilalka qorsheysan oo la rabay inay tababaraan oo ay maaragtay ay u soo adeegsadaan shacabka Soomaaliyeed wiilasha yaryar ay doonayaan maskaxda ka xadeen ayaa waxa la soo qabtay 7 mid wuxuu ku dhintay operationkii intii kalena waa la hayaa oo hay'adaha amniga ay ku jiraan gacantooda sidaan la wada socono waa ilaahay ma hadii buu wasiirka amnigu mar hadii maaragtay 3 bilood iyo waxoogaa maalmood aan maaragtay wax dhibaato aan ka dhicin magaalada Muqdisho iyo dhamaan gobolada oo dhan wasiirka gaashaandhigga isagana waxa uu ka hadlay isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo uu maaragtay oo iyaguna meel fiican maraya taas oo maaragtay lagu guuleystay in la isku dhafo ciidamadii haddana loo wado ama loo sameeynayo ama loo qorsheynayo meelihii ay maaragtay lagu hayn lahaa ee la geyn lahaa ee deganaan lahaayeen shabeellada dhexe iyadana waa laga sifeeyay nimankii nabadiidka ahaa al-shabaab shabeellaha hoosana waa laga sifeyn doonaa insha Allah oo qorshahoodu waa socdaa wasiirka qorsheynta ayaa isagana wax laga wareystay maaragtay shirkii golaha ay shirkii ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradii maaragtay wada socday ay kaga qayb galeen wadanka Switzerland taasoo maaragtay 3 wasiir oo wadamada ka tirsan ay meeshaas ay maaragtay joogeen wax badan looga hadlay oo ugu horeeyo mashruucii deyn cafinta ee SNB oo halkaana uu kelmad wanaagsan oo qurux badan u ra'iisul wasaaruhu Mudane Xasan Cali Khayre uu ka jeediyay waxa la rajaynayaa in shacabka Soomaaliyeed ay cashuurta bixiyaan si 340 milyan oo dollar oo la rabo in aynu rabno 18 bilood soo socda sidii loo bixin lahaa ama loo ururin lahaa si deynta leynooga cafiyo taana dhammaan wasaaradaha iyo maaragtay hay'adaha dawladdu waxay ballan qaadeen in laga wada shaqeeyo shacabka Soomaaliyeedna ay maaragtay deyntaas bixiyaan si maaragtay deyntaas leynooga cafiyo oo wadanku horumar u gaaro wasaaradda beeraha iyo maaragtay wasaaradda biyaha iyo tamarta iyana waxay ka warbixiyeen wabiyada Daawo Jubbo iyo Shabeelle oo maaragtay bariyahan waxoogaa hadalhayn badan ay jirtay oo la rabo sidii looga faa'iideysan lahaa in maaragtay ayaa waxa loo saaray ama looga shaqeyn lahaa maadaama ay yihiin national issue arrin maaragtay sida badaha iyo wabiyadu ay yihiin arrimo aad iyo aad muhiim u ah in maaragtay wasaarado muhiim ah loo saaro sidii looga shaqeyn lahaa oo maaragtay arrintaas loogala hadli lahaa wadamada aynu dariska nahay oo maaragtay ay danu gaarka inaga dhaxeeyaan waxa loo saaray wasaaradaha ay kamid yihiin arrimaha dibadda maaliyadda iyo wasaaradda beeraha biyaha iyo xanaanada xoolaha si ay maaragtay go'aan uga soo gaaraan maaragtay oo loo falanqeeyo sidii looga faa'iideysan lahaa wabiyadaas 3 wabi ee aynu leenahay oo maaragtay maadaama xoolo iyo beero aynu leenahay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna warbixin dheer laga dhageystay warbixintaas oo dhinacyo badan taabanaysay warbixintaas oo maaragtay wasiirka arrimaha dibadda Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad uu warbixin dheer ka jeediyay